magacaygu waa Ilhaan Laki Maxamuud Cabdi waxaan ku suganahay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka Jubbaland jacaylku waa rabitaan ku abuurma qof kaas oo u qaadayo qof kale oo dhigiisa ah jacaylka waxaan ka aaminsanahay dareen naxariis oo markaasi awood badan dhaliya midho aad u udgoon midho aad u macaan midho aad u qurux badan sidoo kalena sabab u ah in bulsho aad u qurux badan wada naxariis badan wajiyo qurquruxsan ay abuuranto ilaahay ka sakow jacaylku waa dareen awood badan oo qof iyo qof kale oo aan waxba isku ahayn oo laga yaabo in laba kala deegaan oo aad u kala fog ama laba kala qaaradoodba ay ka soo kala jeedaan ama kala degan yihiin isku soo jiida isla markaasina aaminsiyo qofba qofka kale inuu yahay qofka dunida ugu dhow qofka ugu jecel yahay qofka ugu naxariista badan qofka uu markaasi ugu kalsoonida badan yahay waa midka sababa inay labadaasi qof ee aadka u kala fogaa hal guri ku wada noolaadaan waxa uu noqdaa awood badbaado oo lagaga badbaadi jiray colaado iyo haliso mararka qaar waxaynu ognahay in jacaylku dhaqan ahaan Soomaalida uu awood weyn ku lahaa waxaan ognahay in uu beelo istagaalsanaa oo xaalad xun taagnaa lamaana isjecel oo isguursaday ay sabab u noqdeen in beelihii ay hubki dhigaan halkaasna waxaan ka dhadhaminaynaa awoodda iyo wanaagga jacaylku leeyahay jacaylku ma aha wax aan qiyaas iyo hadal ku soo koobi karno waa dareen oo wax aan la taaban karin inta badan waxaa la cabiraa waxa la arko ama la taaban karo ama la tirin karo jacaylku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aan la tirin karin la taaban karin isla markaasina la arki karin waa dareen ku abuuran qofka bini'aadanka gudihiisa unugyadiisa si gaar ah wadnaha oo ah halka ugu qaalisan uguna qiimaha badan xubnaha jirka bini'aadanka jacaylku dambiilo maaha